بنتي مادام أي شركة نقل سوق قلين ولا لهن مرف iyo cid walba maanta garab taagan inaan galadii aan sina dhulkooda lagu qaadan waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin garab istaaga ama siisniin soo garab roogsateen marka sidaas daraadii ugu dambeyn waxaan rabaa inaan mikrofoonka ka wareejiyo afhayeenka koonfur galbeed ee Soomaaliya Dr. Ali Abdi باب الناس هلكن من كسو جيديو باقي جود هانت دكتور تفضل دمانتين مهتنتين أجيب كيسنا أجيبتين سنكو بردرني كويتين كمهتنتين دمانتين وحنسين ليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي بسم الله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون waxaan caawa oo ay taariikhdu tahay 28 bisha Agoosto 2021 waxaan isugu nimid inaan soo dabagabeeyno kulamo maalmaha noo wada socday aqoon-yahanada waxgaradka iyo dhammaan bulshada rayidka ay ka soo jeeda degmada Afgooye jaaliyadda degmada Afgooye ee waddanka UK waxay ka arisadeen xiisada ka jirta degmada Afgooye jaaliyadda waxay aad iyo aad ay ugu walacsan yihiin dhibaatooyinka sii tarmaya ee ka jira degmada Afgooye iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose waxaa natiijooyin burugan leh laga soo sheegayaa degmada Afgooye degmada Afgooye iyo dadka reer Afgooye waxay ahaayeen dadkii soo dhaweeyay oo martigeliyay shacabkii Soomaaliyeed sanadii 1991 kadib markii dagaalkii sokeeyay oo qarxay degmada Afgooye waxay ahayd meeshii Soomaaliya oo dhan ee u soo wada qaxday lagu amaan geliyay lagu nabad geliyay haddaba waxa awaal dara ah in yaani abaalkii aan u sameeyay Soomaaliya dadka Soomaaliyeed aan u sameeyay in maanta loogu abaal gudo hanjabaad iyo barakicin in loogu hanjabo ayay yaani abaalkeena u noqday taasi ma ahan mid aan yeelayno mid aan u dul qaadanayno iyo mid aan aqbali doono midna ma ahan degmada Afgooye waa degmada kaliya marka laga reebo garoonka diyaaradaha iyo dekada xamar markii laga reebo waa degmada kaliya ee laga qaato maamulada gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed ay ka qaataan dhaqaalaha canshuurta ay ka qaataan haddaba iyadoo waliba canshuurtaasi aan dib loogu soo celinaynin shacabkii laga qaaday maxaa yeelay sida walaalihii igu horeeyay u sheegeen wadooyin male yani asaasi nolosha asaasiga male waxbarasho male caafimaad male waxaana laga qaadaa dekada iyo airportka markii laga soo tago canshuurta ugu badan ayaa waxaa laga qaadaa degmada kaliya ee Soomaaliya ka jirta ee canshuur laga qaado waa degmada Afgooye waana degmo aan dekadna lahayn marka waxaan aad uga xunnahay in dhaqaalihii iyo mataqaanaa wanaagii aan samayno in loogu bedelayo xumaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay shacabka degmada Afgooye waxa ay ku dhex nool yihiin burus iyo musmaan dhaxdooda shacabka degmada Afgooye waxa ay ku dhex nool yihiin burus iyo musmaan dhaxdooda taasoo aan ula jeedo isbaarooyinkii ciidamada qalabka sida lagu sheego oo wata dareeskii dawladda wata calanka ugu dhagsan yahay halkaasi ay isbaarooyin u daadsan tahay degmada afarteeda dacal iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose dhinacna ay ka fadhiyaan kooxda al-shabaab marka shacabkaasi waxa ay ku dhex nool yihiin burus iyo musmaan dhaxdooda ayay ku nool yihiin maalin keliyana isma dayin in yani dadkaasi laga dulqaado shabaabka haddaba
waxaan caddaynaynaa in uu waxba kama jiraan yahay sharcigii dowladdii kacaanka ay dhulka horey ugu magac dartay danta guud ee tirsigiisu ahaa 73 ee soo baxay sanadii 1973 soo baxay waxaan caddaynaynaa waxaan 75 soo baxay waxaan caddaynaynaa in uu yahay sharcigaasi nambarkiisu yahay 73 waxba kama jiraan ah dhulkii dowladdii kacaanka ee shacabka degmada reer afgooye ay aga qaadatay iyo guud ahaan gobolka shabeellaha hoose waxa ay si sharuud la'aan ah ay ugu soo noqdeen kadib burburkii dowladdii dhexe gacantii dadkii asalka u lahaa ayay dib ugu soo noqdeen cid laga yeelaayo male cid laga yeelaayo male waa in dib loo fiiriyaa qaab dhismeedka degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed maxaa yeelay degmooyinka saddexda maamul ee koonfur galbeed isku dad iyo isku dakhli ma ahan marka waxaan soo jeedinaynaa in qaab dhismeedka nidaamkaasi dib loo eego maxaa yeelay lagu saleeyo degmo walba populationkeeda iyo dakhligeeda ma isku dhigmi karaan degmada afgooye iyo degmada waajid ma isu dhigmi karaan degmada afgooye iyo degmada ufurow ma isu dhigmi karaan marka waxaan leeyahay sharci ma ahan cadaaladna ma ahan haddii taa la samayn waayo oo qaab dhismeedka degmooyinka iyo gobollada gobolka shabeellaha hoose iyo baay iyo bakoy baay iyo bakool dib loo eegi waayo laguna salayn waayo cadaaladda degmo walba yacni tirakoobkeeda dakhligeeda lagu ixtiraami waayo laguna yacni tixgelin waayo waxaan caddaynaynaa dadka gobolka shabeellaha hoose ku nool gaar ahaan degmada afgooye meeshii danteeda jirta inay aadi doonaan meeshii dantooda jirto inay dadkaasi aadi doonaan ayaan af buuxa caawa ku leeyahay maxaa yeelay dadkii waa la gacan bidixeeyey canshuurta iyagaa dhiiba iyagaa population ahaan u badan saddexda gobol markii la isu dhigo gobolka shabeellaha hoose waa 8 degmo labada gobol ee baay iyo bakoolne waa 8 degmo hadda saa daraaddeed ilmaadeeryaalow cadaalad ma ahan dulqaad intaas waa naga dhammaaday hadda waxaan leenahay haddaan lagu salaynaynin cadaaladda oo aan yacni mudnaan lagu kala siinaynin degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed say u kala dad badan yihiin iyo u kala dhaqaale badan yihiin waxaan caddaynaynaa in aysan noqon doonin mid lagu wada joogi doono ma lagu wada jiri doono insha allahu waan ka tashan doonaa haddii aan cadaaladda la samaynayn ugu dambayntii waxaan rabaa inaan la waramo reer galadii galadii waxay dhahaase doofayle kuma needaa doogo shalin dheegaayi ma ahayne doofayle runtii maywaali waxaa la dhahay farmaajo iyo lafta gareew arrinta oo degmada afgooyka socoto ma ogol lihin doogaas doo naxli ee waaye doo been ee waaye doo yacni sal iyo raag aan lahayna waaye haddii yacni lafta gareeg iyo ogayne farmaajo cabdidheere ay soo diri tan kale waxa waahe haddii yacni farmaajo iyo lafta gareeg iyo ogayne ninka la dhahaa mahad maysheeni inii us degmada afgooy dhaho halaygu salaamo mala duminaayo arrintooda ama mahad salaada waa guddoomni adi waxaa waataa taliyaha xabsiyada iyo maxaabiista waata adi ma ihid wasiirkii arrimaha gudaha ma ihid haddii afgooy naga tiri xabsi naga tiri iin sheeg haddii dadka reer afgooy naga tiri maxaabiisna niin sheeg taas waaye taas waaye aw mahad waxaan leeyaa afgooy ma xabsi ma afgooy dad sheena maxaabiis ma adi shaqadaa xabsi iyo maxaabiis waaye raalli ahaw وانا سلامتك وقدوني هذه السلام وقدوني tan kale waxa waaye haddii la dhihi waxaa la dhahay maxkamadda waxaa fadhiyay nin digil waxaa soo suumiyay xaanshiyaal oo yacni khudbashireed yaabni waxaa la yaabnay maxkamadda iyo horta waxaa waaye
maamul i hooseedaasi maxkamadda maamul i hooseedaasi maxkamadda ma e private ma e dukaan qof leya ma e ama digil ha fadhiyo ama nin daanish ha fadhiyo ninka digilka iyo ninka daanishka maxkamad ka shaqeeyi karaan laakiin maxkamadda wal xukumee maamul xukumee marka waraaqaha la sheegi khudbasira waaye ununa waxaan lanaa dooga adi sheegtay shahaado zuur waaye unun ustaasaan dhahaan wal kale ma dhahaan waxaan lanaa dooga adi sheegtay adina shahaado zuur waaye dooga adi sheegtay shahaado zuur marka waxaan leeyaa galadiyey alshiin sabaaboyne dooga weliba dhammaane huwaya ilmal budriisiye qof wiine kasoo tahee marka waxaan siin layaa buntigiin lama hilada buntigiin dhuugsada hal il halka jiifado hal ilna halka soo jeedo dooga ma dhammaane dooga dulaal idalleeyo soo dhashi dooga haddii dulaal idalleeyo soo dhashine meel hoosan baadee marka waxaan siin layaa in dhoogin fura hal il halka hunduro hal ilna halka soo jeedo buntigiin hilada wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh